allaha yow ninkii guursadow adan ku guulaysan guryo ba'ay cayr iyo ka qaad goobataal maran gablan wiila'aaneed ilaah gorodda kuu saariye waa meel inkaar lagu gubaya dhaxal laguu gooye gurbood iyo carruur ay dhashaa kuma gargaaraane garka kuma qabtaan oo wiilasheed gogol ha qooqsiinne gaafaha raggaad qaybsataan geedka kugu celi gaani iyo irmaan guuna iyo goodad iyo qaarmugu dhalka iyo gaadiid la raro gooniha u foofsan ganuun xoor lahood soo shubtana eebba kugu gaabi rag ninkii hungurigeed galow minadu kaa guurtay gaaniga la taageero iyo gabasku kaa leexay geedka iyo xiniyaha jirka oo guranna laalaadi dadkii ay soomaalidii hore habaarkooda iska ilaalin jirtay kuwii ugu daraa waxaa ka mid ahaa wadaadkii kitaabka eebbe garabka ku sidan jiray iyo sidoo kale gabyaagii caanka ahaa ee ay bulshadiisu dhab u aqoonsanayd si ishooda iyo ilaacadooda looga badbaado labada mid walba sidiisa ayaa loo dhowri jiray loo darajayn jiray loogu hagar bixi jiray hadduu waxtar u baahdo waxyeelayntiisana la isaga digi jiray haddii kolka ay arrintu sidaa tahay bal waxaad malaysaa habaarka laga filan karo ruuxa labadaa tilmaamoodba isku darsaday waxaan u jeedaa ruuxa wadaadka ah isla markaana gabyaaga ah waa arrinta sheekada aan maanta idiin hayaa ay ku saabsan tahaye bal dhegta u dhig waxaa la yidhi galbeedka dhulka soomaalida ayaa bartamihii qarnigii 19 waxaa ka soo baxay wadaad quraan ruug ah oo aad looga aflaxay wuxuu ahaa degaankii uu joogi jiray oo idil macallin la isaga sheegay macallin ardadiisa dhab ugu hagarbaxa sidaa darteedna dadku si fudud ayay u kala garan jireen iyaga iyo dugsiyada wadaadadii kale kuwii wax ka baran jiray col iyo abaari haddii aanay u diidinna aabba waliba wuxuu ku taami jiray wadaadka inuu la darso si inamadiisa midkood uu dugsigiisa u geysto dhaqanka waxbarashada ee soomaalidu siduu ahaan jirayna waxaa la bixin jiray xoolo aan badnaynoo ijaar ah macallinkaas oo kalena uu ka qaadan jiray waalidka dhalay kolba ardayga uu waxbaraayo xoolahaas oo ay ugu qiimo roonayd qaalin geela oo wadaadka la guddoonsiin jiray kolka wiilasha midkood uu qur-aanka u dhammeeyo inkastoo uu sano kontonaad madaxa la galay haddana macallinku weli reer ma uu yeelan weli ma uu guursan maxaa yeelay xoolo uu yarad isaga bixiyaa xeradiisa kuma jirin guurkuna sida la og yahay waayadaas ma fududayn oo nin waliba gabadha uu dhalay ee u korta wuxuu ka filan jiray in laga siin doono geel fara badanoo kolkolka qaarkood 60 halaad ay tiradiisu kor u dhaafi jirtay sidaas awgeed gabdhaha way ku xisaabtami jireen oo inta badan ninkii laba laga guursadaa wuu ka hodmi jiray inkastoo dhaqan ahaan ay wiilasha ka jeclaayeen dadkaas oo la oran jiray macallin axmed maxamed aw ibraahim aw sidiiq ayaa maalintii dambe waxaa dugsigii ugu yimid nin uu garanayay dadka degaankaana ka tirsanaa waxaa ninkan la socday wiil markaa 10 jirsaday oo uu keligii wiilal ka lahaa kaasoo uu dugsiga u keenay in qur-aanka lagu baro madigaa ka sokow wuxuu ninku lahaa 2 gashaantimoodoo ciddii aragtaaba ay quruxdooda la ashqaraartay labada midda weyne way doonanayd oo yaradkeedii odaygu waxna waaba qaatay waxna wuu sugaayey tan yarise maalmahaas ayayba timaha tidcatay wadahadal aan sidaa u dheerayn kadib odaygii wiilka dhalay iyo macallin axmed way heshiiyeen waxay isku afgarteen macallinku inuu wiilka qur-aanka u bilaabo iyo markuu u dhammeeyo in odaygu abaalguud ahaan u siin doono labadiisa gabdhood midda yar ee dhowaanta guudka loo dabay xelala'aan ku raagay buu ahaaye aad buu macallinkiina heshiiskaa ugu farxay kolkaas buu isla markiiba intuu wiilkii guddoomay alif waxmara looxii ugu xariiqay maalmihii xigayna isagaa ma ahee ardadii kale inuu iloobo ayuuba ku sigtay goor noolba isaga ayuu gacanta haystaaye haddiiba maseedigii rumaad buu u aqoonsaday u malee jimco iyo fasax kale toona uma oggolaado halka wiilasha kale ay maalintii 1 cashar ka qaataan isaga labuu siin jiray sida muuqatana wiilku fahmo miiran buu ahaaye casharkii la siiyaba intaan 2 tukays daawan ayuu kor ka qaybaa macallinow ii dhegaysadiisa ayay ardada kale la wada yaabi jirtay wax la isla soo maraba dharartii qur-aanka loo bilaabay kolkay 2 sano ka soo wareegtay ayuu wiilkii casharkii ugu dambeeyey ka soo baxay halkaas buu qalinkii ku jebiyey isaga oo 12 gu ay markaa u dhammaadeen dabadeedna ballantaa ahayde goor subaxa ayuu macallin axmed kabihiisii iladay wuxuu u dhaqaaqay xagga reerkii wiilka dhalay iyadoo markaa ay xoolihii dareereen ayuu u tegey odagii oo golihii geelaysa weli hor fadhiya isnabdaadin kadibna wuxuu weydiistay ballantii ay lahaayeen inuu fuliyo gabadhiina uu u dhiso kolkaasba odagii cabbaar hadalkii ku xirmay marba dhinac ayuu u jeestay dabuubta wadaadka wax uu kaga jawaabo ayuu doondoonay ugu dambaystii
ayaa waxa alla ka keenay wadaadow runi rag kama naxiso waa tii lagu maamaahay tu kalena waatay ahayd geelna waa galgashaa ragna weysgediyaay ballanteennii sideedii ahaan mayso waxaad igu leedahay qaalintii geela ahayd ee aad ka qaadan jirtay kolba wiilka aad qur-aanka u dhammayso sidaas awgeedna arrintii gabadha iska ilow oo isaga samir awal baan aad ugu fududaaday oo ku degdegay linkii dhegihiisii ayuu rumaysan waayey allow riga iiga dhig ayuu hoos ugu ducaystay warkaa tiri iigu soo celi ayuu odagii dhowr jeer ku yidhi ha yeeshee wixii hore wax ka duwan ka maqli waah show isagu ma ogee gabadha rag guurdoona ayaaba soo doonay showgeel fara badan bay odaga u ballanqaadeen oo sidaas ayuu ballantii kaga baxay wadaadkii bay kolkaa indhihii madoobaadeen barqay ahayde qorraxdiibaa u muuqan weyday isaga oo aad u gidaadsan luguhuna ay xajin la'yihiin ayuu ka kacay isagana tegey golihii uu odayga la fadhiyey dabadeedna inuu dagaalamo ayaa ka go'day hubkusa waa kala kaane isaga kiisu warmo iyo fardama ahayn kiisu wuxuu ahaa qur-aan asma iyo asraare allayleh iyaga ha ku aarsado oo suuraduhu kala astaan lehe reerkii ku ballan furay ancaam ha ku gano markaana ha warjeefto odayga ha wareento wiilka ha curdan dhaliso hooyadiina intay ku durduriso dhasha ha ka qabsato siduu filaayeyna taasi markay dhacdo waxaa xigi doonta inay u yeedhaan tuftiisa iyo tahliishiisa inay ka baryaan intay xaal mariyaanna ay u dhisaan gabadhii ay u diidi jireen 114 jeer hadduu akhriska suuraddaas toddobaad idin u soo jeeday ayuu habeenkii dambe reerkii ku halgaaday tix gabay ahna kula ballamay wuxuu yidhi rag hadduu irdhoobo qalbigu aamin kala waayo ninba awlaxiisuu dagaal kula ordayaaye ancaamey maxaad fali adaan ku arsilayaaye sow eebadaydoo aan ritiyo aaha noqon maysid sow inanka keliyuu dhalay iyo ubadka layn maysid sow ooridiisuna dhalmada ka afurdayn mayso sow aramiduu qabi jiriyo eel ku kicin maysid sow awgii doonaay markaa layma odhan doono kii kaa xigay goor duhurkii ah ayaa macallinkii nin soconayaa dugsigii ugu yimidoo war uu ka naxay uga tibixsiiyey wuxuu ku leeyahay macallin axmedow gabadhii laguu diidi jiray niman ardaagal u ah ayaa dhowr cisho aabbaheed marti u ahaa wixii kale oo dhanna waa laga heshiiyey tirada geela yaradka ah ayaa intaa lagu gorgortamayey saaka ayaa arrintaana la isku afgartay taladuna waxay tahay geed hebel in galabta lagu meheriyo wadaadkii baa markaa haddiiba go'aan gaaray wuxuu goostay gabadhaas iyo ninka soo doonay inuu isgafsiiyo inuu goobtaa tago kana tiriyo gabay habaara oo kaa soo doonay iyo ninkii kale oo maqlaaba ay kaga cararaan wax yar kadibna geedkii gabadha lagu meherin lahaa oo aad loo soo buuxiyey ayuu isa sii taag nin garanayay iyo nimaan garanaynba mar qura ayaa la wada aamusay isna meel laga wada maqli kara intuu joogsaday gabadhii oo gabdho kale kob gees ah la fadhidana murugsitada ku fiiqay ayuu yidhi naagtaa gadaafaha qabtiyo culimo gaadeeda naagtan gugeedii maraha tira ku gowsiiyey guduudkeeda unbay arkiya kuma gudaayaane allahayow ninkii guursadow aadan ku guulaysan guryo ba'ay cayr iyo ka qaad goobataal maran gablan wiila'aaneed ilaah gorodda kuu saariye waa meel inkaar lagu gubaye dhaxal laguu gooye gurbood iyo carruur ay dhashaa kuma gargaaraane garka kuma qabtaan oo wiilasheed gogol ha qooqsiinne gaafaha raggaad qaybsataan geedka kugu ciili gaani iyo irmaan guuna iyo goodar iyo qaalmugu dhalka iyo gaadiid la raro gooniha u foofsan ganuun xoor lahood soo shubtana eebba kugu gaabi rag ninkii hungurigeed galow minadu kaa guurtay gaaniga la taageero iyo gabasku kaa leexay geedka iyo xiniyaha jirka oo guranna laalaadi qurax ayaa geedkii lagu kala cararay ninkii guurdoonka ahaa iyo raggii la socdayna geel wixii ay hormariyeen ayay odagii ka ceshadeen wadeeco allah iyaga oo ku haya ayay reerahoodii u jaxiirteen gabadhiina laba dambe isuguma imaan gabaygaas ninkii maqlay iyo kii loo sheegayba 4 geedi buu ka fogaaday sida la sheegay iyada oo weli gabar ah ayay gabowday waayadii dambana waxay ku sheekayn jireen macallin axmed baa laga gaaray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo